dadkaan waa diin la ii aduuliyo waa diin la ii aduuliyo waa diin la ii aduuliyo hadal deeysanaan rabay inaan deex ka soo saaro hadal deeysanaan rabay inaan deex ka soo saaro daluuga maahay duuga maahay nimankaan degaanka oo daluuga maahay deexda bari ku daansada doonkanoo u daaqaayo ardoonkanoo u daaqaayo inaan daba kacdiinaan rabaa dooca loo daadsho dar allaahiyaa laga rabaa hadalka duubkiisa meesha duuda haabaay nima degankaabaay iyo duuda boohiya iyo daluuga maahay nimankaan degoo dahan aroo nimankaan degoo dahanoo doodaa igooda badan yahay oo dar allaahuu duraantaan inaan daba kacdiinaan rabaa hadalka duubkiisa ku daysaama leesku daysaama dulmisa leesku daysaama dadkaan waa diin la ii aduuliyo waa diin la ii aduuliyo waa diin la ii aduuliyo nimankaan waa diin la ii aduuliyo oo ciddahaaba ay ka talihaysayo oo ka talihaysa waa diin la ii aduuliyo deeley bariisa ee soo dalbeen loo deeley bariisa soo dalbeen ee soo dalbeen ardaluuga kuduraamana ardaluuga kuduraamana kuduraamana daluuga kuduraamana dabandoobya daybuura iyo deegaan leeya dawacaale ardeegaan leeya dacaybaalan iyo deeyabaaro iyo daayabaaro ka dugaysa nimankaan ku daahsane arduuliyo mataan iyo diinloo ku sii dara niman daluugi maahay ardabandoobya daybuura deegaan leeya dawacaale nimankaan ku daahsane lo darajaysanaana diidima aniga dowladayna diidima ilay dadka qodiis ilay doontay dib u daabaaliyeen doontay dib u daabaaliyeen diidima diidima yaan dowladayna diidima dalkayna ka daamiyihiin dalkayna ka daamiyihiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر aayadaha qur-aanka ah iyo shiribkaasi waxa ay qeyb ka ahaayeen kulan ballaaran ay qeybaha kala duwan ee guddiga deegaanka Maxay maanta ku yeesheen magaalada caasimadda ee Muqdisho kulankaasoo ahaa kii labaad uguna ballaarnaa ee ay ku kulmeen guddiga deegaanka Maxay ayaa waxay ka soo saareen baaq iyo digniino mar kale ku wajahan dowladda federaaliga Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ku saabsan
dhul ay sheegeen in laga boobayo iyadoo la adeegsanayo sifo aan sharciga waafaqsaneen, waana dhulka ku fidsan inta u dhexaysa Muqdisho iyo Warshiiq. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah xubnihii guddiga ee goobta ka hadlaya. yaxye xasan maxamed ka hadlayo danaha dadka iyo dalka tiisaha u hadlayo masiirnimada nagu jirto waa dhibaato dadka haysato kana haysato dalkay ku dhaqmayeen aawadeer. marka taas aawadeera waxaan dadka aan u maqashiihaynaa nin gurigiisa la dumi karo ee cunugu abkow u yahay amba aabbo u yahay kaa dambena la dhihi karo inuu waddanka ka jiro malayma. iminkaas ka bacdi dalka waxaa loo baahan yahay dadnimada in layskugula soo hadlo ee laysu aqoonsado. anigoo haddaan yaxye xasan ah haddaan iraaho gobolka muqdisho $50 kala baxaa ee dowladda ka baxdo laygama yeelayo. dalkaas dadaa iskale cunug yaroo dhin ahoo la leeyahay guddoomiye waaxidaa tahay anaa ka guddoomiyaa xildhibaan deegaanaa tahay anigaa leegala tashaa beesad isii war beesadan qaadee halaha dhishaan 15 kilomitir iyo goy walaalow dalkaas dantiisa maahan laguna heli maayo lagumana heli doono. waxaas waa la waayay horaa loo waayay dibaa loo wey doonaa insha allahu ilaa idinkiisa. marka waxaan kaa rabaa meesha midna waa midda dowladda midna waa midda dadweynaha. dowladda waxay rabto dalka dalkeeri waay laakiin dadka joogay kala tashee maahana cunug jaad cuno inay kala tashato dowladda fashar danaher kuma jirto. marka waxaan kaa rabaa madaxweynaha hadduu madaxweyne Soomaaliya uu yahay yoona Falastiin naga dhigin 15 kilomitir aan kaa jaraa anuka yar baadiyaan ahay dal magaalo ma nihin xoolo ku dhaqaalaysanaa garoon noogala ma soo degto usuguna naga siimaa u tagno garoonkan tikeeda ku leedihiin raac baabuurkan diyaaradaana male nima usu shaqaalaysiiyey oo garoon deked aga dhigay maareeye oo meelay ku talanaa helin oo inay duunya daaqdo inuu dadku noo hanaa kale helin inuu inta nagala tashado 15 kilomitir iyo 30 kilomitir ka jarto Falastiino Mareykan yiri waa la raraa dhismaa loo naqahay naga masata mana ogolaa doono weligay. hadduu dowlad yahay dadkaas naga fiirsho dadka tuugada ah oo dadka u dhuqdhuqeeyahay ha ka qabto dalkana dadka oo joog ha kala tashado hadduu kala tashan dagaalka ka dhaco asaga u aabaa 15 kilomitir meel Soomaaliya laga jaro ma jirto oonuna ogolaa ma doono hal ogaada dab. wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo dalow cabdulle maxamed magacayga ah waxaan cabasho ka nahay niman dhadhal lahoo jeegoo dhexiiran inay dhulkayna damiinaa ka nahay yidhaahaan horta waa diidanna. midda lamaad Soomaali aan nahay anaka Soomaalina waa haadahaado haddaa aragto dab haddii loo shido waa ku la'ayaa. markii waxaan ka rabaa dadkan lacagta iska qaadahayo waa haadahaadihii dhul 3 cunugoo jeegoo xiran lagala tashahayo dhul intaasoo kunoo bilyan oo qofood leedahay 3 cunugoo jeegoo xiran kala tashahaynaa asaan lacagtayna ku shubaynaa taas haadahaadee u egtaa. inay lacagta lahayn inay wan speak la sheegay ka heleen iyo inay lacagta qashiqub tahay Soomaali aniga waa la yaabana. dhul intaasoo kunoo qofood bilyan leedahay 3 cunugoo jeegoo xiran kala tashahaynaa lacagta ma qashiqubkiya soo lama shaqeyn. inna lillahi wa inna Soomaaliya wadadkan waa la yaab Soomaaliya hada iska dhaafa xoolaha ma iisa dadweynaha iskale intaasoo kunoo qofood bilyan iskale war wixiina ucadaasada yaa rasuulallah war wixiina ucadaasada. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلها ما هذا إسكال ما سووك إنك أنا
نوع قلادنا هذا النوع الحمد لله وحما كجوج وينو كجوج وينو الله يراه كويا لما أشل يراه ما حي قد حياه مقدوش ورشيق ليهين ضل يراه مساكين وحول لقطة برمكيتا أنا وحاضر أفرنا جاء حريا جاد أنا وحاضر دبك كل شبطان أنت عوام دولة ديال مي جالس يلا ديال ميو لا سكت تقول يراه لو سوى يقول يراه نو صحيحة أو أتكيس ويني markii dhulkaas wuxuu ka dhaxeeyaa dad oo waddanka ba joogin iyo dad mataqaanaa waddanka jooga oo muqdisho ku nool iyo dad baadiyo jiro xoolo dhaqataa oo ka dhaxeeyaa dadkaasoona meeshii warba ka hayn in la afar cunug la wato la yidhaaho jaadcunyaan la yidhaaho dhulkaana siiya dhulkaas dadkaas lagalama tashi karo dadkaana dadka matala ma ahan dadka dad matalay leeyihiin kuma diide odayaalay leeyihiin culumay leeyihiin lagala tashado ay dadku ku aruursan yihiin oo wax kasta waxay dadka muqdisho ha jiro mii ha jiro magaalas ha jira baadiyas ha jira warkooda la dabakacay leeyihiin ay kala tashadaan leedahay ay lagala tashaa ay ku fiican tahay warqadaha been abuuray meel la roorayeen oo la yidhaaho meelaha meel garaash ku yaala cilmaha meelihiisa lagu caawamada lagu jarjarayo leeyahay oo dadka lagu ajarayo dadka lagu warqadahana lagu soo sameeyay wax jira ma ahan waana bug qofta waxay iska geliso xoolaha daata waaye qofta waxay ka dhay oo waxay iska xoolaha daata waaye dhugaas baac ma ahan bay kuma samadiiday hadii baacna qaayna dad lagala tashado leeyahay oo dadka lagala tashaayo ma ahan شيخ الشعب ولهاي أضياله ولهاي علماء ولهاي سومالوي مغلوه يساوي شيء مدحوينا ومغلوها وشيء أبيكم اسم رئيس الوزراء مغلوها وشيء وسارة دون أرمها جدها قدوميها قبلك واحد مغلوه إن الملأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meeshaan beriga ajoogo waxaan u joognaa dhulkii meeshaas ku yiilay ee maxay ay lahaayeen marka dad dhidhinahoo wuxuu ka yahay aan lahayninoo iska ilmaahay dhulkii qaraabada yar iyo wey inta kulli ay lahaayeena 40 qofood oo waxay yihiin la ogeynay wixii oo dhamay rabaan inay jeebkooda isaga shubtaan marka waxaa laga soo horjeedaa inay raalli laga ahay ay guddiga deegaanka maxay iyo shiiqooda iyo wax walba ay meesha u fadhiyaan ay dhulkaas wax beeca how yahay aan jirin saasaa meeshaan u joognaa raalli isugu nahay asalaamu calaykum bismillaah meeshaan waxaa iskugu nimin inaan cabasho nahnay oo cabasho ka nahnay dad caada qaatiyaalo oo kamida golaha deegaanka warshiiq waxaana cabasho u nahnay dowladda dhexe waxaa kaloo cabasho u nahnay maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana cabasho ka nahnay gadoomiye ku-xigeenka warshiiq iyo gadoomiyaha deegaanka Ceelmacaan iyo rag kaloo hormuud u shaqeeyo oo Sari Cabdihoomoy la yiraaho intaas cabasho ka nahnay dadkana iskala dhulka yeesan goor kale marka maxay beec maahan dhulkan maahan dad xoolo dhaqataa iskale unuga dawlad socotana ma arkin nima burcad oo caada qaatiyala ma joogan marka nimankaasna nima matalaan awalna ma dooran السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. intaan meesha isugu timiday waa mahadsan yihiin waxaan leenahay cabasho ayaan nahay annaga cabashaan nahay dhul waalidiinkayna ay ku duugan yihiin oo intaas soo aboofac 500 sano aan kala hirnay ayaa haddoo alla kuuruna ilmo yaryar
oo maaragtay annaga waxaan cabasho u nahay wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha ninka la yidhaaho duqa magaalada gobernatoraha gobolka intaasaan dacwo aan cabasho u nahay waxaan rabnaa nimankan dhulka waxba kuma leh nimankan doorasho deegaan ay ku yimideenay waana ilmo yar yar dadki anigaan idila hadlaayo adoogii saddexaad iyo adoogii afaraad iyo adoogii shanaadba meeshay ku dhinteen waxayna u dhinteen carrada ma ahan in carrada maanta maaragta layska qaato ma ahan ilmaha dhalnayaa u dhinteen kuwiina dhalayaa u dhinteen ma ahan carrada marka in bob ma yeelayno mana yeeli doono weligayna yeeli mayno dadka oo wado hawshaasoo qudbasiraha waxaa lagu googoostay dhulkayna waxaa lagu googoostay baallo oo cabdibila dhinaca ka socdo ninka hadlana waa la xiray baallo cabdibila dhinaca ka socda ayaa lagu falay warqado oo bugaha la goostay luuqyadaa dad lagu siiyo waayaa iyo ilmo maxamed dhedhanaho jaadcunaho mooryaanaho inta baadiye laga wacay saxiix laga qaata waxaas mooryaameed waaye mooryaan waaye wax oo mas-uulana hadda kamid maahan wax mas-uula kamid maahan dadka iska lahaay dhulka waa kanaa dadka inta fadhiya waaye shiiqay leeyihiin culamaa udiinay leeyihiin waayeelay leeyihiin intaasba wax kamida oo kulugle kamid maahan annaga tubaan nahay tub maaxayaa nala yiraa ceel maaxayaa nala yiraa dadka tub waaye oo u kala degaa dadka tol waa yihiin laakiin isku tub maahan annaga tubtayna shiiqaan leenahay culamaa udiinaan leenahay guddiyaan leenahay guddoomiyaan leenahay intaasba kamid maahan halayska fiirsho hoos ha loo fiiriyo waraaqaha maaragta hoos ha loo fiirsho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo todobada bisha afaraad 2025 waxaan cabasho ka nahay horna uga soo ahaynay inaad deegaanka maaxay dood nagu soo gashay oo dad ilmajaad cunaan oo dhulka carridiina jaada lagala baxaa nala ku yiray aan dood ka nahay dhulkan waa lagu soo dhintay dada hor ugu soo dagaalamay dada u soo rafaaday 15,000 oo qoys kule 15,000 oo qoys iskale yatiina iskale dad oo hor u dhinta iskale dad maqana iskale dad dalka jooga iskale dad dibad jira iskale dhulkan markii ay joogeenay cali baad iyo xasan fooler markii ay joogeenay dacwo kama jiro ninka liira shufay carabiga ku soo xigay dacwo kuma arag ilmo oo jaad kala baxaayo inaan dhulkayna ay iibsadaan waa ka soo horjeednaa beecnoo maahan dhulkayna haddii nagala tashaayo haddii lala tashaayo culamaa udiina joogo anaga daluuga maaxay waqdacana ku dilanaa xusa tacdaada ku dilanaa beecnoo ma ahan ila boorka ma rabno dekadka ma rabno waxa ka rabna male danteena nagu aad wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo taariikhda 7 bisha afraad 2025 guddiga maaxay waxay isugu yimideen shir jaraa'id oo ku saabsan deegaanka maaxay heer maaxay oo maaxay iimaynoo tahay waxaan idiin sheegaynaa maaxay 1,500,000 oo qofoodaa ku nool waa deegaankoodii waa ceeshoodii waa meeshay u soo hoydaan kana soofaan dadka shirkadaha oo dhahayo maaxayaa maalgelayna waxaan u sheegaynaa cod dheer iyo cod gaaban inayna qarashkooda iska gelin isaaga dhumin dhagaha furtaan iyo indhaha waxaan ugu digayna waa jeebkooda iyo xoolahooda hadday iska geliyaan cid ay weydinayaan ma jirto waxaan kaloo isla gorfaynay deegaanka maaxaay waxaa iskale 1,500,000 oo qofood oo qoys dad maanta dhahaya ana kaa matalno oo dhahaya deegaankii baan noo beeca waa beentood noo beec maahan mana gadayno mana gada doonno dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa war cod dheer iyo cod gaaban deegaanka maaxaay dad baa degan waa deegaan la degan yahay dadkiisana leh ilaa gabar intay ka hertane inay deganaadaan
ay rabaan dadka inuu rabo inuu 1,500,000 qofood kiciyo 1,500,000 kalena ku soo abuuro oo meeshaan dajaayira waa midaan qaada karnana maahan mana qaada doono dadka matalo oo ah ninka la yiraaho xildhibaanka deegaanka oo xildhibaanka Soomaaliyeed nagu matala hadana galmaax Yoonis aniga galmaax Yoonisaan nahay waxaana nima la yiraaho Umar galmaax ninka hadda naga oo waxa ninka la yiraaho Ismaan Xaadoole deegaanka maxay wuu yaqaanaa dad ahaana wada dhalanay deegaanaha wada degana waxa cabanayo waa dadkiisi kana cabanayo deegaankoodi dad tuuga qowleysata oo ku soo duulay haddaa ogtahay iyo haddaa ogeyba anaga maanta deegaankeena banaanka u taaganaa cid aan kala tashayno lama jirto haddaan ka gudubno dadka mas-uulka ka ah oo Soomaali matalo hadduu gudoomiyaha gobolka yahay hadduu maareeye yahay wariyaa gacmihiina dadkaas lagu barakicinin adduunyada waxay qortaa qalinka jeebka ay ku jiro taariikh madowna wuu qoriyaa baal cadna wuu qoriyaa qof la arkaba waxay dadkeeda ku samayso ay taariikhdu u qoraysaa waxaan u sheegaynaa dadka cabanayo waa dadkiina waxay ka cabaayna waa niman qowleysataa oo gudoomiye ku-xigeenka degmada Warshiiq iyo halka Ceelmacaan iyo ninka la yiraaho oo shaqaalaha Hormuuda oo inuu deegaanka yiraaho aniga alayga tashaa waxaan anaga qaada karno amba aqbalaynana maahan waa ka soo horjeednaa haddaanahay guddiga deegaanka maxay intay gabar naga dambaysan dalkayna iyo deegaankayna har iyo habeenaa u taaganahay maxay maa noo iiba waa diidnay waxaan shirkan ku soo gabagabayhaynaa safaaradaha Turkiga Mareykanka Ingiriiska Faransiiska Jarmalka inta shirkad danayso dalkayna waxaan ka doonaynaa inay nagu siiyaan dhulboobka nagula haayo inay garab iyo gaashaan nagu siiyaan haddaan nahay guddiga deegaanka maxay guddiga deegaanka maxay waxay uga hadleen xaaladda deegaanka iyo sida ay uga soo horjeedaan qorshaha dawladda ee ku aadan dhulboobka deegaanka u dhaxeeya Warshiiq iyo Muqdisho. si kastaba dhulkan ayaa horey u sheegtay dowladda Soomaaliya in laga damacsan yahay sidii loogu sameyn lahaa Muqdisho cusub.